السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتين كسور هذا الشانل كينا عفماتي قروح الشانل فضلا هدي أنا عصبت سبسكرايب نوده هدا هرونو لجوكتنا لايك شيرت كومنتيجا وإنه ديري جرين إن ما توحن كهل دونا إن شاء الله وتعالى daryeelka gacmaha waa waxyaabaha aad u wanaagsan oo fakti hore oo qofka laga arkayo gacmaheeda marka hore jirkaada meesha laga arkayo waa gacmahaada haddii yihiin kuwa qurux badan maasha Allah aad u maxay heetood u dhalaalaya aad u jilicsan maasha Allah aanan ka muuqanin wax maxay heetood oo daruuf ah maasha Allah sida hawsho kaleeta ayaa gacmaha lagu qabtaa nadaafada ayaa loo isticmaalaa alxamdulillah Allah ayaa nasiye ilaahay hanoo tam yeelo marka daryeelka gacmahaada waa ku muhiim mar walba aad baxeen heetood kullama mar walba aad daryeesho gacmahaada waa mar walba oo gacmahaada ay noqdaan kuwa qurux badan maasha Allah jilicsan dhalaalaya haddii aad jeceshahay intaas ba samee intaan insha Allah ta'ala marka hore waxaa soo qaadanaysaa fasiliin waa wada naqaana aad ayuu ugu wanaagsan yahay gacmaha iyo lugaha laakiin maanta gacmaha ayaan uga hadli doonaa qaybteenan waxaad kala soo qaadanaysaa jeex liimo dhanaan ah liimo dhanaantana waxay meel walba oo madmadooba ayay ka saartaa madowga oo waxay la dagaalantaa dark spotska ayay la dagaalantaa linta waana liimo dhanaanta caadiga ah marka waxaa soo qaadanaysaa fasiliin ayaa soo qaadanaysaa laba qaando oo kale fasiliina weel ayaa ku ridaysaa waxaad ku sii dhex ridaysaa weel kale oo biyo aad ku kululeysatay toos adiga dabka u saari maysid maxay ahayd fasiliinka iyo waxaad soo qaadanaysaa fasiliinka aad weel yar oo dhala ayaa ku soo shubanaysaa waxaad dhex dhigaysaa biyo kulul weel ay kuugu dhex jiraan si uu kuugu milmo fasiliinka markuu kuu milmo oo biyo kuu noqoyo waxaad soo qaadanaysaa jeex liimo dhanaanta ahay waa ku miiraysaa markaad ku miirto waa isku labaysaa meel ayaa dhiganaysaa hadduu fridge ku yaalan fridge ayaa gashanaysaa si uu kuugu qaboobo oo xaaladiisa hore ugu soo laabto marka maasha Allah mar walba howl qabato oo hawsha dhameysato gacmahaada jag ayaa ku siisanaysaa waa marsanaysaa maasha Allah gacmo qurux badan oo waxaad yeelanaysaa kobacsan wax madmadooba aan lahaynin wax diifah aan ka muuqanin gacmahana waa kuwa ugu quruxda badan jirkeena mar walba meesha laga arkayo waa faristi waa gacmaha marka gacmahaada hadaa ku dadaashana maxay tahay mar walba waxay ka sii qaadayaan qurux iyo dhalaal fasiliintana laguma gaaro gacmaha jilcintooda maasha Allah aad ayuu ugu wanaagsan yahay jirka fasiliinka iyo liimo dhanaantana waxay jirka ka saartaa madmadowga faraha ka galo kaleeto qofka howl markay faraha ku qabato siibo waxa fiican marka howl qabanayso inaad xirato falas ama gloves inaad xirataa ku wanaagsan maxaa yeelay mar walba gacmahaada toos uma abaarayaan hawshii ama maxay ahayd wixii aad qabanayso oo kaleeto marka hadaad dhaqaysid iyo hadaad maxay ahayd aad alaab dhaqaysid oo kalaba waxa wanaagsan inaad falaska xirato falaska wuxuu ka saacidayaa kuusoo gudbi mayso gacmahaada adeeg ka noqomayaan madmadowga iyo wixii aad dhaqaysay kuusoo gudbi maayaan gacmahaada waxay noqonayaan ku ilaashan maasha Allah oo maxay ahayd falaskaad ku ilaashato aad ayuu u wanaagsan yahay falaska mar walba inaad xirato mar walba aad howl qabanayso hadii ahaan lahayd nadaafada meelaha aad tirtiraysid oo kaleeto hadii ay noqon lahayd maxay ahayd alaabta aad dhaqaysid oo kale hadii ay noqon lahayd dhar hadaa dhaqaysid oo kale waxa ku muhiim ah inaad falas xirato gacmahaada jileecooda ay ku ahaanayaan waayo hawsha gacmaha way adkaysaa aad ayuu adkaysaa gacmaha madmadow ayay ka saaraysaa ayaga dhanba maqaarkooda wuu dilmayaa oo looguma talagelin waxyaabaha kiimikada oo loo isticmaalo nadaafada gacmahaada toosina u abaaraan marka iskinkaada ay dhaawac gareynayaan marka mar walba ku dadaal gacmahaada waa quruxdaada maasha Allah gacmo yar oo qurux badan ayaa yeelanaysaa hadaa fasiliinka iyo liimo dhanaantana aad ula sii dhawaato falaskana aad xirato marka hawsha qabsanaysid soo dhawaada gabdho daryeelka jirkaada waa gacan ku hayn qof walba gacanta isku haysana wuu ku qurux badan yahay qofta kale maasha Allah soo dhawaada asxaabteena cusub asxaabteena hore noola joogtana nala sii jooga hanaga taginina maasha Allah aad baa u mahadsantihiin runtii aad ayaan ugu faraxsanahay heerka aad na soo gaarsiiseen
jazaakum allahu khayran dhammaantiin